ma jiro wax ka muhiimsan inaad difaacato masnaad ku faanto diintaada xitaa kuwa dhibaateynaya haddii ay yihiin kuwa adiga ku jecel oo kuwa haya xushmad aad u fara badan. sidoo kale waa kuwii xidigaha Yamal ku taageeray hadalkii uu kaga soo horjeestay taageerayaasha Spain. intaba muuqaalka ayaan kuugu sheegi doonaa ka hor intaan bilaabin hamuugaan inaad qayb ka qaadato qurxintiisa oo aad u taabato koobi link fara badan filowna aan soo dhahdo oo aad ka mid noqoto saaxiibadeena halkan. waa hagaag saaxiibayaal, weli waxaa dhammaan qaaxidaha sportiska haysata hadalhayntii ka dhalatay warbixintii ama boostigii uu shalay soo dhigay Lamine Yamal, kaasuuna ciyaaryahanka kaga hadlayay inuu aad kaga xumaaday ama uu ka soo horjeedo ficilkii taageerayaasha Spain ay sameeyeen kulankii saaxiibtinimo ay la ciyaarayeen xulka Egypt. hadalkaasoon ahaa in taageerayaasha Isbaanishku ay u gafeen diinta barakeysan ee Islaamka, masna uu haysto Lamine Yamal iyo ciyaaryahanka ku helay hadalhayn badan iyo sidoo kale taageerid ay u muujiyeen xidigaha ugu waaweyn kubadda cagta. Ashraf Hakimi, Paul Pogba iyo Vinicius Junior ayaa ka mid ah xidigaha ugu waaweyn ee Yamal ku taageeray hadalkiisa, halka saaxiibadiisa Barcelona iyo xidigaha kala tirsan halkaas masna ku matala xulka Spain ay iyaguna gabi ahaanba ka soo horjeesteen taageerayaashooda, masna ay garab istaageen Yamal. waxaana xidigahaas ka mid ah Pau Cubarsí, Alejandro Baldi, Marc Casado, Marc Bernal, Fermin Lopez iyo Inigo Martinez oo horey kaga tegay Barcelona. sidoo kale geesinimada uu ku hadlay Yamal waxa aad uga helay dhammaan muslimiinta ku nool adduunka, iyagoona sheegay inuu yahay geesi kaasoona gutay xaqii ay ku lahayd diinta, taasoo ahayd inuu ka difaaco cid kasta oo markaas dhibaateynaysa xitaa haddii ciddaas ay yihiin kuwaan isaga cadow ku ahayn.